السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مركز كسود هذا برنامج كان يدير جلنت hadowga ugu weyn ee waxbarashada maahan jaahilnimada ee waa qiyaaliga waxbarashada. garaadku waa awoodda la qabsiga isbeddelka. noloshu waxay noqon lahayd mid naxdin leh haddii aysan jiri lahayn wax kaa qosliya. waa inaan keliya fiirinaa nafsadaheena si aan u aragno sida garashada leh ay nolosha laga yaabaa inay horumariso shay aanan rabi doonin inaan la kulanno. mar uu ka hadlayay dhammaystirnaan la'aanta, qof ayaa wuxuu ka cabanayay inaad qalad samayso, waayo sharciga nolosha adduunka ayaa ah inuusan jirin wax dhammaystiran. una sheeg laga yaabaa inay tahay shayga wanaagsan, maxaa yeelay dhammaystirnaan la'aanta adiga iyo aniga ma jiri lahayn. dibnaha waa inuu lahaadaa xuquuqda uu ku soo afjari lahaa noloshiisa haddii uu doono, laakiin waxay ila tahay qalad aad u weyn. si kastaba ha ahaatee, nolol xun way muuqan kartaa, balse waxaa jira mar walba shay aad samayn karto kuna guulaysan karto, maxaa yeelay halka ay nolola jirto waxaa jirta rajo. haddii aadan isdhiibin, wax walba way kuu suurtogeli karaan. qof ayaa mar walba waxay ku qaadanaysaa waddo dheer inuu xaliyo dhibaato, ilaa qof xaqiiqda ahaaya jawaabta mooye keliya waqtiga ayaa sheegi karaa wax walba siday noqon lahaayeen. xiisaha shayga ugu wanaagsan maahan inaad joojiso wax su'aalidda, balse xiisaha ayaa leh sababtiisa jiritaanka su'aalahaas. ma leeyahay xirfad dabiici ah oo ii gaar ah, kaliya waxaan ahay xiiseeyo dareen awood leh wataa. kaliya miyihii nabadoon, laakiin waxaan ahay nabadoon mitid ah. waxaan rajaynayaa inaan u dagaalamo nabadda. dagaal ma dhammaan doonaa ilaa dadka nafsad ahaantooda ay diidaan inay dagaalamaan. indheergaraadku dhibaatooyinku way xaliyaan, balse kuwa maskaxda badan way iska ilaaliyaan. gobaxa waxgarashada waa inuu ka bilaabmaa dhalashada, uuna joogsadaa oo keliya dhimashada. qof waliba oo aan runta u qaadanaynin si halis ah marka la joogo shayada yaryar, laguma aamini karo waxyaabaha waaweyn midkooda. markabka wuxuu mar walba ku ammaan yahay xeebta, laakiin taasi maahan waxa loo sameeyey. weligaa ma guuldaraysanaysid ilaa aad joojiso isku dayga mooyaane. haddii aadan shay u sharixi karin si fudud oo la fahmi karo, ma aadan u fahmin si wanaagsan oo ku filan. qofku waa inuu fiiriyaa waxa uu yahay, maahan waxa uu isku maleeyo inuu noqdo.